Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa wada hadal miro dhal ah la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud sida uu ra'iisul wasaaruhu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa baraha bulshada. Wada hadalkan uu yeeshay labada hogaamiye ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo, iskaashiga amni iyo midka dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal ee deriska. Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in ay si qoto dheer uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo khuseeya gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan nabadda, xasilloonida iyo horumarinta iskaashiga dhaqaale ee labada wadan iyo guud ahaan gobolka. Waxa uu intaa ku daray in Itoobiya iyo Soomaaliya ay leeyihiin dan guud oo midaysa, isla markaana iskaashigooda uu muhiim u yahay xasilinta gobolka iyo horumarinta bulshada labada dhinac. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isna qayb ka ahaa wada hadalka ayaa la sheegay in uu soo dhaweeyay xiriirka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya iyo dadaalka Itoobiya ku bixinayso horumarinta gobolka. Kulanka ayaa la tilmaamay inuu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu dhisayo xiriirka nabadeed, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo waara, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen inay sii wadi doonaan wada shaqaynta si loo gaaro danaha guud ee labada shacab iyo gobolka oo dhan.